dowladnimadu weyn oo aan laga hadlin oo dastuurka Soomaaliya uu ku meel gaar u yahay waa maqnaanshaha Somaliland dastuurka inaan u codeyno afti laga qaado maba aaminsan aniga 4.5 macnaheedu waa maxay doorasho waan rabnaa in aan kulligeen laakiin waxaa la rabaa wada saxan oo aan haddana na gelinayn qafis aynan ka bixi karin mustaqbalka inaan galnaa khatar ah aan ka hadalno dhanka adeeg bixinta wali shacabka Soomaaliyeed dowladda adeeg kama helaan sida hadda sheegtay waxaaba adagba in canshuurta dalku ay midaysan yihiin barashada biyaha wali waa ku adag yahay shacabka Soomaaliyeed helitaankooda sanado badan kadib maxaa keenay arrintaas waxaa keenay haddaan ku suureeyo dhismaha dalka inuu yahay guri aad dhisanaysid state formationka waa dhulkii inaad dhahdo anaa iska leh marxaladaha haddaan sifeeyo state buildingkana waa inaad gurigii dhisid state consolidationkana waa inaad adkaysid oo albaabadii iyo dariishadihii wax walba u xirtid oo alaabtiina aad dhigtid maxaa la yidhaahdaa sariirihii iyo wixii aad dhigtid state service deliveryna waa markaa seexan kartid gurigii oo raaxo leh hadda waxaan maraynaa dhulkii waa la claim gareeyey darbiyadii waxbaa laga dhisay laakiin dariishadihii albaabadii iyo xataa dhinac baa dhinac ka laalaaday iyo saqafkii oon la saarin iyo meelahaasaan maraynaa marka waqti dheer bay qaadanaysaa taas intii taa laga gaarayana service deliveryga oo macno le dee ma dhowaa dadka Soomaaliyeedna ilaa ay kaga qancayaan stateka inay state maaragtay ay leeyihiin oo midaysan oo ayaguna xuquuq ku leeyahay ayaguna ay maaragtay mas'uuliyad ay ku leeyihiin ay ka aaminayaan oo ay ka gaarayaan inay canshuur rasmi ah bixiyaan hadda canshuurta Soomaaliya laga qaado canshuur weyn maaha waxa keenayaan waxa waaye dowladnimada intii loo jiro way dowladnimadu laba qiyaas bay leedahay inta dowladnimo rasmi ah u jirto waa intaad awood leedahay dalka wada difaaci kartid iyo intaad canshuurta loo baahan yahay soo qaadi kartid way ilaan service baa ku bixinaysaa hadda ka hor baan gaalkacyaan u malaynaya inaan ka sheegay waagii aan ku jiray tartanka Puntland 2008 baan Boosaaso waxaan kula kulmay nin ganacsada oo shirkad madax ka ah shirkad meel dhexaad oo ilaa wuxuu yiri $7 milyan baan sanadkii ku shaqeeyaa 10 over sanadkii aan ku shaqeeyo waa $7 milyan wuxuu yiri dawladda Puntland sanadkii waxaan siyaab yiri canshuur ah $180 $180 kun ma haya $180 oo maxay tahay wuxuu yiri waa license fee ilbaabkiiba license laga qaadaa marka ma qaan hadii inay isbedeshay waxa ku dhaganaa dabakaayo ninka 7 milyan ku shaqeeyo laba dabaq meelaha degan dabakaayo yara ku dhaganayd markaan ugu bato qiyaas assetka meesha saarnaa waxaan u maleynaa $2,000 bay ahayd asaguna $180 u bixiyaa ko wax macna la kama soo bixi karaan labo it's deeply unfair ya $180 $1,000 marka la yiraahdo waa han meeqo waa 18% sama waa laga qaaday $180 7 milyan meeqo way 0. intaas percent waa deeply unfair waa dowladnimada inta u jirnay sheegaysaa ninkii waxaan ku yiri waxaan maaragtay cadaalad baa waxa inaa inta bixisid wuxuu yiri waxaan kuugu sheegayaba waa inaysan cadaalad ahayn inaan ku dareensiiyo oo consciouskiisa diiday maxaa ka qabanaysaa baanina marka waxba kama qabanayo maxaan ka qabanayaa waa marka koowaade anigu ganacsadaan ahay shaqadeedu waa to increase profit for my shareholders dadka aniga oo maaragtay saamileeyda inaan faa'iidada u badiyo way shaqadeeda anigu haddaan la weydiin system dawladda weydiisay aysan lahayn ma siinayo waa midda labaad wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa 180 kaas aan bixiyay xataa wax lagu qabto ma aqaan mujada hufnaanti transparency say muhiim u tahay haddii la ogaan lahaa hufnaanti transparency 180 wax lagu qabto la og yahay intaasaan qabanay intaasaan idinka qaadnay intaasaan ku baxday waxaas ka badan haddaad rabtaan intaasay u baahanaysaa bixiya haddii la yiraahdo dadku waa ku qancayaan markaas moogta ya arrin kale oo qosol loo gaalkacyo
aan ku arkayna waxay ahayd 2003 nin aan saaxiibanahay baa hotel buu ka dhistay meesha 2003 mar aan imid baan hotelkiisa ku soo booqday waxaa marka hotelka hortaagnaa gawaaridan hub ka saaran yahay qoryaha saaran yihiino degmada ka socda waxay yiraahdeen waxay leeyihiin canshuurta waa inaad maanta bixisaa ma kala baxayno war iga suga wax yar iga suga maya haddaadan bixin canshuurta waa xiraynaa hotelka meel uu orday intuu ka baxay halkaasoo ka baxay shin Soomaaligu jawaan ka soo buuxiyay ani waa fiirsanaya dad badan baa fiirsanaya meesha ninkii askariga ah watay ciidanka buu u dhiibay jawaankii markuu saa ugu dhiibay jawaankii baa gabar ayadana meesha taagneed askariga kulleetii ku dhigtay dhaqaad bay ku lahayd waxay tiri lacagteeda haddaan siinin ma kala baxayna maanta war sug maya wallahi kala baxayn intay soo jiiday geesinimadeedan askariga qoriga taxta kama baqin intay soo jiiday dhulku soo dhuftay tiri hadda waa ina lacagteeda siisaa ninkii canshuurta bixiyo arkaya iyo anigoo arkaya buu jawaankii uu ka qaaday farta ka saaray gabadhi ninkaas marka ma ku kalsoonaan karaa canshuur dambe waxay isku xiran yihiin marka hufnaanta intii loo soo dhawaado canshuur qaadis badan baa loo sii dhawaanaya dawladnimadan halkaas ka sii dhawaanaysa laakiin hadda canshuur badan lama qaado 0.1% 0.5% camal way culays ka saaran canshuurta dadka Soomaaliyeed 1% ka yar waxaasna dawlad laguma dhisi karo adduunyada standardka waxa way boqolkii dollar ee economy uu sameeyo between 30 to 40 dollars inay dawlad gacanteeda ku noqoto way markaas ay serviceska adeegyada nabadda iyo cadaaladda iyo difaaca iyo mashaariicda iyo caafimaadka iyo waxbarashada wax ka qaadi kartaa taasna ma helayso ilaa dawladnimo lagu kalsoon yahay hufnaanteeda lagu kalsoon yahay in wax lagu qabanayo la ogyahay la gaaro lama maartay lama gaari karo aad ayuu mahadsan tahay waxaan inaad dib u eegso dastuurka la'aanta dastuur la isla ogol yahay waa caqabadda ugu weyn ee Soomaaliya maanta haysta inta badan aad ugu soo noqoto dhagaha shacabka Soomaaliyeed haddaba sidee baa ugu sahlan haddana ugu dhib yar oo la isla ogol yahay ee dastuur lagu midaysan yahay loo heli horta su'aashaas aad bay u soo noqotaa waxaadna moodaa inaan dhabta laga sheegin dad badanna ay si siyaasadeed u sheegaan horta dastuur lagu midaysan yahay waa haysanaa oo dastuurkan hadda la haysto oo dastuurka ku meel gaarka ah dad macnaha ummadda Soomaaliyeed dadkii metelaya isku raacay cod xambaarayaal constituency assembly-na way u codeeyeen maantana dastuurka hadduu ku meel gaar yahay macnaheedu ma inuusan qabanayn oosan ahayn dastuur shaqay inuusan ahayn ma leh qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka oo madaxweynaha lagu doortay kaas ayuu madaxweyne ku yahay maanta federaalka Soomaaliya marka dastuurka inuu ku meel gaar yahay naaqus waay maaha macnaheedu mana shaqeynaya mana qabanayo maaha hadduusan shaqeynayn madaxweynaha federaalka madaxweyne maaha dastuurku waa shaqeynaya okay waana lagu heshiiyey maxaa loo dhameystiri la yahay su'aasha ahna lafteeda su'aal waxa way u baahan in dhabta laga sheego in la dhameystiro dastuurka oo final laga dhigo aftil la geeyo oo dadku u codeeyaan المقصد المنشود كله صعد ما ماشي ugu dambayso loo socdo oo dawladnimadeena u dhamanaysa ma wax dawladnimada uga maqan maanta inaan dastuurkaas loo codeynin oo aan garanaya ma jirto dastuurka ku meel gaarka ayuu madaxweyne noogu dhisan yahay prime minister noogu dhisan yahay wasiir noogu dhisan yihiin ciidan noogu dhisan yahay safaarado ku joogan dalka deyn lagu qaadanaya security council-ka maanta ku fadhina dawladda Soomaaliya sideedana waxa ugu weyn oo aan laga hadlin oo dastuurka Soomaaliya uu ku meel gaar u yahay waa maqnaanshaha Somaliland aysan dadka ka hadal maanta haddii afti baa loo qaadaa la yiraahdo oo Somaliland ka maqan tahay automatically adaa aqoonsan Somaliland in Soomaaliya ka mid ahay mana aha wax nagu cusub ma wax dunida ku cusub ma West Germany 40 years ayuu dastuurkeeda ku meel gaar ahaa oo go'aan waxay qaateen ilaa reunification of Germany laga gaaro
ilaa midaynta Germany laga gaaro dastuurka Germany wuxuu aanayaa dastuurku meel gaara أنا waxaan aaminsanahay saas inay Soomaaliya u baahan tahay ilaa reunification laga gaaro ama su'aasha Somaliland kama dambays go'aan laga gaaro dastuurka inaan u codeyno afti laga qaado maba aaminsan aniga sababtoo ah su'aashaas weyn maxaa ka samaynaysaa laakiin wixii loo baahdo sharciyadii loo baahdo iyo qodobadii loo baahdo inay waxyaalo nagu soo kordhay oo aan markaas hore loo sheegin oo loo baahan yahay in jid loo bixiyo la sameynayo amendment waa lagu sameyn karaa ugu dambeyntii laakiin afti in la gaarsiiyo ilaa arrinta Somaliland ka dhamaanayso dee dalka Soomaaliyeed baa calaamad su'aal saaran tahay laakiin wixii loo baahan yahay articles wax facilitate gareynaya oo ka maqan markaa la dareemo inaan hore looga fikirin waa lagu soo dari karaa waa la amend gareyn karaa waa laga bedeli karaa hadday heshiis siyaasadeed jirto laakiin bahashan gurbaantan siyaasadeed oo musharax kasta uu dhahayo anigu dastuurkan dhamaystiraya waxa ka hooseeya horta waa inuu si dhab u ogaado waxa dhamaystiraysaa marka dastuur lagu midaysan yahay waa jira ku meel gaara waa kii 2012 kan hadda lagu sameeyay maartay isbedelka lagu sameeyay laguma midaysna dawladda Puntland waa diiday dawladda Jubbaland waa diiday dalka Soomaaliyeed kuma midaysna kan Soomaaliya ay ku midaysan tahay waa kii 2012 oo afti maartay cod bixiyaal constituency assembly lagu codeeyay wax nooga maqan dawladnimadana ani uma muuqdo wixii nooga maqan oo articles la bedelayo hala bedelo laakiin codeynta dadka Soomaaliyeed waa inay si fiican uga hadlaan maxaan ka sameynaynaa Somaliland ashtariyadana inta badan dastuurka la socdo doorashooyinka marka Soomaaliya doorashooyin xor ah markaan xorkooda waa maxay mar shacabka codeynaya doorashada dadka u dhowdahay in ka badan 60 sano kama bixin ana Soomaaliya midaysnayd Puntland doorashooyin waa ka dhacaan gobol deegaan ee Somaliland ilaa heer madaxtinimo ka dhacaan marka sidee marka doorashooyin la isla ogol yahay oo dadkana u dhow loo qaban karaa Soomaaliya marxaladan hadda lagu jiro iyadoo aan ognahay in Somaliland iyo Puntland ay doorashooyin qabtaan waxa soo dhan si loo frame gareyn karaa haddaan ku noqdo marxaladihii state building waxaan niri state formation ka waa horta dhulkii inaad waa leeyahay waa state building waa inaad guriga dhistaa oo darashadihii daaqadihii gelisaa state consolidation waa inaad qurxisaa oo rinjeysaa oo alaabtii dhigtaa service delivery waa in aad seexan kartid oo ku raaxaysan kartid shahaadada ugu dambaysa ee la leeyahay dalkan waa samaysan yahay gurigan waa dhisan yahay la leeyahay la siinayo waa in cod loo dareeraa oo doorasho la sameeyaa oo ay dadku ku kalsoon yihiin isku xir marka meesha aan guriga ka marayno oo darashadihii ka maqan yihiin oo gees ka fuqsan yahay marka haddaa u boodid doorasho one person one vote maxaa ka horeeya doorasho one person one vote waxyaalo badan baa ka horeeya laba qaab baa loo sameeyaa kow waa in lagu heshiiyaa inay deegaanku ku salaysanta doodaas 25 sano la soo dhaafay waa la gelayay laguma guuleysan tan kale waa in ay ku salaysan tahay dadka populationka dadka tirinta dadka inay dadka Soomaaliyeed yiraahdaan waxaan u qaabaynaynaa doorashooyinkeena xildhibaan la soo dooranayo in 100,000 oo qofba ay hal xildhibaan soo doorato gobolka aniga ka soo jeedo oo maaragtay Alta Jubba haday malaayiin ku nooshahay 100,000 u qaybay intaas xildhibaan ka soo baxaysa hadii degmooyin ay jiraan hal degmo aan xataa 100,000 keeni karin 2-3 la isku darina marka waa fair in la yiraahdo hal xildhibaan ka soo baxay taasna waa mid fair in la qaado dadka la tiriyo census sameeyeen intay qaadanayso waa garanaynaa dalkii dhan gacanta lagu ma hayo nabadiisa gacanta lagu ma hayo waxaan gacanta lagu haynin gobolada waxa marka la sameyn karaa waxay tahay wax ku meel gaar ah oo xal loo arkay oo constituency assembly la isu keenay macnaha waxaan leeyahay constituency assembly ma aha single constituency wax la yiraahdo dalkoo dhan la yiraahdo waa hal constituency voter registration la sameeyo 2-3 milyan baa is diiwaan gelisay xisbiye inta la sameeyo la xisbul liisa soo qorto oo doorashada ay ku galaan qof walba wuxuu ka helo wax lagu heshiin karo laakiin taas annaga lafteena ma sameyn karno Soomaaliya ilaa 4.5 laga baxo sababtoo ah 4.5 macnaheedu waa maxay 4.5 macnaheedu waxa waa qabaa'ilkii iyo lafihii isugu tagay Djibouti sanadkii 2000 ee soo qaybsaday saamiga 4.5
wixii aan ka ahayn oo meeshaas aan qayb ka helin xaq uma laha siyaasadda Soomaaliyeed waxaas miyaa la aqbali karaa may haddii marka la yiraahdo 4.5 kii saas ahaaba intaan soo qaadno ayaan xisbiye kor saarayna 4.5 kana waxa loo sameeyay waxay xal ma ahayne xaq ma ahayne xal bay ahayd wax xal ah oo la raba in laga gudbo bay ahayd ayadii markaa soo qaado xisbiye saartid permanent ka dhigtay ogow macnaheedu waxa waaye reer walba waa yaqaan intuu leeyahay intaas kaliya lahaan kartaan way intaan wax lahayn wax ma leeyihiin way waxaas marka wax Soomaali aqbali karto ama xaq ah xaq diin xaq ku ah xaq sharcina xaq ku ah xaq bini aadamnimo xaq ku ah ma marka sameyn karno marka wixii la yaqaanay oo dawladda lagu dhisayay oo isla yaqaanay bal yaanan permanent ka dhigin laakiin halkii aan xaq ahayn iska sii socdo dawladda kale ha lagu dhiso ilaa dawladda kale ay ka saarto in la yiraahdo ma ahane ama geesinimo inta la yeesho baarlamaanka la fariisiyo la yiraahdo numberkan 275 macnaheedu waa 4.5 formulada 4.5 ku qotama oo aniga reerkan leeyahay sab reerkan leeyahay waa aqaan intaan leeyahay 275 marka la yiraahdo marka in laga guuro numberka la yiraahdo 150 baa laga dhigay markaas nidaam cusub inta la leeyahay hal tartam la yiraahdo wixii dhan isku qasmaan oo qof walba iyo dadnimadiisa ay noqoto ayaduna waa wada kale tiina ma muuqato oo maartay siyaasi ahaan bay adag tahay marka hadda anigu waxaan aaminsanahay waxa la gaari karo waa xal mastuur laakiin dalkii aan siyaasad ku mideysnayn dastuurkii la isku ogaana ku mideysnayn maartay voter registration dalkoo dhan uusan ka dhacayn xisbiyadii wada sameynteeda dadkoo dhan elite-ka aysan wada aqbalsanayn doorasho one person one vote aadaya waa kalaamu xaqin yuraadu bihi al-baatil baanu arkaa aniga kalaamkaas marka doorasho waan rabnaa in aan kulligeen laakiin waxaa la rabaa wada saxan oo aan haddana gelinayn qafis aynan ka bixi karin mustaqbalka inaan galnaa khatar ah taas markii laga digtoonaado way anoo dadka u hambaynaya waa inaan su-aashaas kale oo ka raaciyo maadaama aad sida aad hadda sheegtay dad badan oo aqoon-yahan aaminsan yihiin ay adag tahay qof fiican duruufta maanta ka jira waddanka tan hadda la isku doorto iyada naftirkeeda madaxweynuhu markuu xukunka fadhiisto 5 sano waxay uga khasaartaa inuu ka shaqeynayo siduu kusoo laaban lahaa bal midaan iyada see xal loogu gaari karaa in 5 sano lagu lumiyo doorasho aan la garanayn qaabkay noqonayso hadhowna khilaaf ka yimaado maxaa xal laga gaari karaa wallaahi waxay u baahnayd geesinimo iyo hoggaan iyo leadership dad badan baa waxay aaminsanaayeen madaxweynaha hadda fadhiya federaalka markii la dooranayay nin horey madaxweyne u soo noqday way mar labaadna la doortay dastuurku wuxuu qabaa mar saddexaad inuusan isharixi karin meelu ka mari doona ma aqaan marka waxaa la islahaa ninkan maadaama isharixi karin nidaamkan intuu dariiqa saxa ah waafajiyo maadaama isaga isharixaynin wax doorasho Soomaaliya oo taariikh oo lagu xasuusto uga tago waa la lahaa laakiin ma dhicino weli in hankii sharaxaad uu ku jiro oo xisbiga hadda uu sameystay baa muuqata marka arintaas waa nasiib darro ugu dambeyntiina wixii aan naqaanay bay ku dhamaanaysaa in miis la isugu yimaado laakiin waa runtaayo wixii aan aragnay 2022 laguma noqon karo oo waa wax aan garanayno waxay ahayd oo iska xantoobsaday oo kolay la isaga shubtay oo wax la gali kara aysan ahayn qofna uma joojinayo keligay baana isdooranayana ayadana ma soconayso xalku wuxuu ku jiraa meel dhexe anigu waa ku kalsoonahay in ugu dambeyntii la heshiin doono sababtoo ah maaragtay hal gees keligii wax ma wadi karo sharciyaddii maaragtay Soomaaliya loo hayana way lumaysaa haddii saa lagu kala tago ilan dalka adduunyadu wuxuu aqoonsan yahay Soomaaliya inay tahay dowlad federaal oo state-yana leh oo looga baahan yahay inclusive politics wax la yiraahdo inay wada jirto haddaysan wada jirinna in sharciyaddii dowladda loo hayay ay dhaawacayso arrintaas marka arrin khatar weey wada doorasho national ah oo Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan tahay ma dhici karto hadday dhacdana sharciyadda dowladda Soomaaliyeed bay aad u dhaawacaysaa marka in la isugu yimaado xalun bay noqonaysaa waxaan rajaynayaa hadda shirka maanta loo fadhiyo ugu dambeyn xogtiisii kama dambeyn sama helin in xal laga gaaraan rajaynaya haddaan laga gaarinna dee wixii naqaanay oo isceerceersiga baa laga yaabaa inay bilowdo waxaan galayaa su-aashii ugu dambeysay kadibna waxaan
وفريا ضدك عن رجيني هنا بالي ذيك دمي مدحونا soo socda hadii uu ku guuleysan waayo inuu dalka mideeyo waxa argixisada oo dalka in badan oo kamid ah haysta haddana dib u qabsanaya oo ka sifeyn waayo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya maxay noqonaysaa والله مستقبل آدي آد مجدي أبو نقنيا هدي ضلك اللي مدين واي دولة نما مرة لنا يسوع عيدا كذي يو مارتي revenue كذي يو وحياله رموز السيادة عن هذا الشيء the symbols of sovereignty هدي لقش قين واي مدين يحرين هدي لقش قين واي دولة نما الصومالية مسوا دوانيس إن قليهان نبديت كالشبابنا إن لقعت كذا وخصب تطبضن بقى إن الله الله محل الله الله يا waxay aaminsan yihiin waa la yaqaan dowladnimada Soomaaliya ma aaminsana qaarkood waxay aaminsan yihiin inay ka mid yihiin khilaafo ka weyn Soomaaliya inay ka mid yihiin bay aaminsan yihiin laakiin waa laga adkaan karaa si serious in looga adkaado sideedana ogaada nimankaas waxay dalka ku hayaan maaha kaliya nabadgelyo la'aan kaliya maaha u fiirsada sida istiraatiijiga meelahay joogaan meelihii ugu khayraadka badnaa Soomaaliya target gareeyeen calmiskaad hadhihin calmiskaad qofkii garanaya iyo calmiskaadba al-shabaab iyo daacish waa isku kaymide magacay u kala duwan yihiin laakiin waa isku mid calmiskaad daacishta joogta generaalka hadda kasoo dagaalamay waa meel khayraad badan oo xijigii iyo maaragtay biyihii iyo degaanadii iyo baddii iyo strategic location iyo kalluunkii wax dhan ku yaalaan waa meel macnaha wax soo saar badan oo Soomaali ah ay leedahay calmadow waa meesha aragteen khayraadka ay leedahay istiraatiijiyada ay leedahay waxa ku yaala xoolo iyo biyo xataa qaadka soo dhoofsano meesha ka baxo weey oo xataa dadka Soomaaliyeed aysan caleentan joojinayn malaayiinta dollar ay dirayaan xataa meel maaragtay lagu hakin karo weey qaadkan hadda dibadda laga keenay meesha ka baxo weey macnaha waa meesha say u target gareeyeen ka soco goboladan maarta dhexe oo sida hadda ceelbuur oo kale ya meel waxay ahayd taariikh wax soo saar leh oo 15 sano hadda haysteen ceelbuur oo burjika laga raray waliin maaragtay waxana waa curyaamin dhaqaale maaragtay bariga hiiraan iyo galbeedka oo xoolihii iyo beerihii iyo labada webi inta u dhaxaysa oo meesha Soomaaliya ugu khayraadka badan adduunkan indhaha ku hayo investment badan lagu sameyn karo ummad badan ku nooshahay iyo jabooyinka marka si istiraatiijiga nabadda kaliya ma ahana dhaqaalihii Soomaaliya mustaqbalkii Soomaaliya u curyaaminayaan haddaan marka laga adkaanin dhaqaale iyo dhaqan iyo deegaan iyo nabad jiraysa ma jirto waana laga adkaan karaa Soomaali uma baahna inay dibadda 10 ka keensato si ay uga adkaato calmiskaad baa looga soo adkaaday hadda generaalka ka soo adkaaday waana la fadhiya caawo oo waxaa looga adkaaday hiiraan baa looga adkaaday oo maaragtay oo muqdisho dhexdeeda xataa wax badan baa laga qabtay marka waa laga adkaan karaa waxay u baahan tahay ku dhiirasho iyo go'aan adayg iyo isku tashi bay u baahan tahay waa laga adkaan karaa marka haddaan nimankaas laga adkaan dowladnimo ma jirayso haddaan la midayn maaragtay difaaca dalka oo aan xoreyntaas la sameeyna dowladnimo ma jirto laakiin waxay u baahan tahay aragti dhiirasho leh seriousness leh oo dhabnimo ay ka tahay in xoreyntaas iyo midayntaas ay ka shaqeeyaan tan ugu horeysa u baahan yahay waa madaxweynaha soo socda inuu ka shaqeeyo haddaan taan laga shaqeynin mustaqbalka Soomaaliya waa xun yahay dalka Soomaaliyana hadda 30 sano ku sii dhow yahay 30 iyo dhowr sano ku sii dhow maaragtay 5 sano sii maraya hadda inta uu sidaa yahay marka wadamo badan oo waxaa jira 19th century jiray oo magacyo lahaa oo maanta aan jirin waa jiraan wax cusub maaha wadan la waayo oo u dhinto 5,000 oo state ayaa dhowr boqol oo sano ka hor dhismay 190 baa hadda adduunka ka jirta oo sovereign states ah marka arrintaas waa arrin serious ah oo u baahan hoggaan serious ah oo u baahan aragti serious ah oo u baahan maanta maaragtay samata bixinta dalka Soomaaliyeed ayaa halkaas ay ka bilaabata haddaasan uusan imaan hoggaan arrinta saa uga fikiraya
oo dhahaya maanta mideyntii iyo xoreyntii iyo state buildingkii waa waxaan ka shaqaynayna laakiin waxyaalo kale ku hor ordayana dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay si serious u eegaan maaragtay mashaariicda siyaasadeed la soo hordhigayo iyo dhabnimada siyaasadeed iyo qofka hoggaanka doonayo in uu keeni karo arrintaas serious ka ah ee xoreynta iyo mideynta in kale inay ka eegaan waa dadka Soomaaliyeed